maxaad ka taqaanaa xadgudubka xigtada? Xadgudubka xigtada waxaa ka mid ah xadgudubka nin iyo xaaskiisa, wiil iyo walaashiis, ilmo carruura iyo qof qoyska ka mid ah, sidoo kale ciddii kale ee aad wada degan tihiin. Xadgudubka xigtadu wuxuu noqon karaa dhacdooyin badan oo kala duwan. Waxa ay wadaagaan dhaawac, xanuun, baqdangelin ama meel ka dhac aad u geysato cid kale. Xadgudubka xigtada waxaa ka mid ah sidoo kale in carruurtu ay goobjoog u ahaadaan falkaas, xero ku horjooga qaldan negative social control, guurka qasabka ah iyo gudniinka gabdhaha waxay hoos imaanayaan isla weedha xadgudubka xigtada. Haddii xadgudub lagugu sameeyey, tani waxa ay tahay fiigsanaan traumatisk, waxa aanay sababaysaa cawaaqib halis ah. Xadgudubka noocyadiisa caadiga ahi waa jirdil, maskaxdil, qalab jajib, jujuubid, qasbid dhaqaale, xadgudub galmo, xadgudub elektaroonik, cabasho, xadgudub ujeed barbaarin, xadgudub nidaamaysan, xero ku horjooga qaldan negative social control sida guurka qasabka ah iyo gudniinka gabdhaha. Xadgudubku wuxuu noqon karaa mid la iska dhaxlo. Haddii aad ku soo kortay xadgudub, waxa aad u suurtageli karta in ay kugu dhacdo ama aad adigu samayso xadgudub. Xadgudubka xigtadu waa mamnuuc Norway, waxa aanay sababi kartaa ciqaab aad u weyn sida kuwa aad ku aragto halkan. Ma kugu dhacay xadgudub xigto hadda ama waqti hore, ama ma laga yaabaa in aad taqaano cid ay ku dhacday? Ma u baahan tahay cid aad la hadashid? La xiriir qadka telefoonka qaybta xadgudubka iyo faraxumaynta telefoon 11600. Qadka telefoonka xadgudubku waa qad caawimo oo lagu sameeyey haddii aad tahay qof ay ku dhacday ama aad tahay qof xigto u ah qof ay ku dhacday xadgudub xigto. Warbixintan waxaa lagu maalgeliyey kaalmo ay bixisay Guddiga Xalinta Khilaafaadka Konfliktirooda.